السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقد ونكسن داوديال وأستاذ عبد الرسالة يعقوب channel. ما أنت وحن ربا إن نوصل بنجو داودياشة إن برنامج ير أو كسابسن إن جيت كان شاوري جاه يسد الله أبوره يوم هو يهي جيت كان شاوري جاه إن جيت كان شاوري جاه وجيت إن الله استعماله بالعلة إن جريها لو قرحيه ما ها جيت مرات جيت مرة لقعنا معها أما جيت نوع كله استعماله الواحد والله استعماله بس جيت كان هذا aan ka hadlaynay shawriga ah waa geed loo isticmaalo bilicda guryaha sidee loo diyaariyaa geedkaas laga soo bilaabo abuuritaankiisa mirihiisa sidee lagu helaa sidee loo diyaariyaa sidee marka dambe guriga loogu qurxistaa marka intaas ayaan idin soo bandhigi doonaa isla socod wanaagsan geedka shawriga ah waa geed noocay ah geedka shawriga ma horta geed mirood geed mirihiisa la cuno ma aha laakiin waa geed loo isticmaalo bilicda guryaha in lagu qurxiyo guryaha waxa laga yaabaa inaad ku aragteen meelaha dirjiinooyinka ama beeraha loo tago dalxiiska ama meelaha inaad ku aragtaan ayaa laga yaabaa marka geedkaas sidaas u quruxda badan sida videoga aad ka aragtaan sidee loo abuuraa dadka qaar isagoo diyaarsan ay suuqa ka soo iibsadaan balse waxa jirta boqolaal qof oo raba inay bartaan geedkaas sida loo abuuro hadda waxaan maraynaa qaybtii ugu muhiimsanayd oo ah sidii aan ku heli lahayn miraha geedka shawriga ah geedkan shawriga mirihiisa si aad u hesho waxaad ku khasban tahay inaad raadiso geed shawri ah oo qaangaar ah oo miro leh sida hadda muuqaalka aad ku aragto geedkan miraha aan ka soo gurayno kale mirihii geedka markaad ka soo gurayso waxa loo baahan yahay inaad fahansanaato miraha aad soo guranayso inay ahaadaan kuwo xiran markaan leenahay waxaan ula jeednaa afkooda inuusan furnayn oon mirihii kasoo dhex daadan waan arki doonaa muuqaalka dambe markuu afkooda xiran yahay oo ay kuuskuusan yihiin oo uusan afkooda furnayn mirihi ayaa ku dhex jira iyagoo cagaaran ayaad soo guranaysaa markaad soo gurto waad soo diyaarsatay mirihii oo xiran waxaad ku shubaysaa weel dabool leh ama bac waxay ahaadaan adiga meel xiran ayaad ku shubaysaa waadna xiraysaa waxaad u sugaysaa 5 maalmood kadib mirihii way daadanayaan afkooda wuu furmayaa hadaad soo gurato mirihii abuurka ahaa ayaa soo daadanaya markay soo daataana waxaad iska tuuraysaa qoloftii kore oo ah mid aan hadda soo gurayno waxaad la haraysaa mirihii yaryaraa si aad u abuurato marka mirahaas qaabkaas ayaa lagu heli karaa inaad usoo diyaarsato sidaas oo kale oo aad kala baxda mirihii waayahay daawadayaal waxaan soo diyaarsanay mirihii geedka shawriga ahaa saad u jeedaan waa midkan gacmihiga ku jira saad u jeedaan marka shawriga hadda waa god kasta oo soo taagan waxa ku jira miro ilaa hal xaba ayaa ku jira marka geedkan kaliya waxa laga helayaa miro aad u tiro badan okay mirahan hadda ma furmayaan ilaa 5 maalmood in loo sugo ayay u baahan yihiin waa ilaa 5 maalmood inaan u sugnaa marka 5 maalmood si loogu sugo aniga waxaan ku shubayaa caagan ayaan ku shubayaa caagan markaan ku shubo waan xirayaa waxaan meel dhigayaa 5 maalmood markaan meel dhigo mirihii inta ku jiray waxay sameynayaan inay furmaan oo ay ka soo daataan mirihii yaryaraa ee abuurka ahaa ee ku dhex jiray hadda bahalkan kuusan aad u jeedeen daawadayaal 5 maalmood kadib aan aragno geedkii shawriga ahaa ee cagaarnaa hadaayay aan caagada ku shubnay suu isu bedelay marka aan fiirino waa kana geed kasta hadda wuxuu leeyahay saad u jeedaan gacmahayga waxa kula jiro miro yaryar oo soo daatay saad u jeedaan mirihii waa kuwaas waa miro khafiif ah aynu aragno geed walba afkiisa hadaayay saad u jeedaan wuu xirnaa afkiisa hadaayay wuu xirnaa haddana soo noqday waad u jeedaan wuu furan yahay maxaa ka soo dhex baxay marka waxaa ka soo dhex baxay mirahan yaryar mirahan marka xabad kasta waa hal geed hadda saad u jeedaan mirahan hadda gacanteeda ku jira aad muuqaalka ku arkaysaan hal xabo kasta oo ka mid ah waa hal geed marka mirihii maadaama ay diyaar noo yihiin hadda waan soo guranay geedkii shawriga ahaa waan aragnay noociisa suu yahay mirihii ayaan soo guranay geedihii ayaan fuulnay haddana mirihii ayaan qallajinay way ka soo daateen marka maxaan rabnaa inaan mirihii talaalno saan u talaalaynaa marka mirahan haddaad dhulka isaga shubto wuxuu kaaga baahan yahay biyo badan inaad ku shubto biyo badan inaad u raadiso mar walba inaad biyo badan ku rushayso ay noqonaysaa laakiin waxaa loogu talagalay in lagu abuuro bacahan yaryar ee la heli karo bacaha kuwan yaryar oo dadka qofba si uu isticmaalaa bacahaas ayaan arkaynaa sida loo diyaariyo carada loogu shubo looguna talaalo geedkaas waayahay aniga hadda waxaan isticmaalayaa bacdan aad u jeedaan bacdan ayaan isticmaalaa waxaa jira noocyo kale baca kale oo la isticmaalo ay dadka isticmaalaan laakiin aniga midan ayaan doortay
waayo qof walba wuxuu heli karaa ayuu isticmaalaa soo ma waayo bacdan aan soo qaatay marka hadda way dheertahay saad u jeedaan waa bac dheer marka waan isku laabaya ilaa half ayaan ka dhigayaa half intaan oo kale ayaan ka dhigayaa marka saan isku laabaa waa kan sidan oo kale ayaan sameeyay waayahay gudahan ku laabo marka gudaha markaan ku laabo bacdii wayna ii adkaanaysaa xogaa adeegeedana sidan marka gudahan ku laabay biyaheeskeedana wuu badanayaa marka sidan iyadoo ah ayaan caro ku shubayaa carada aan ku shubi doono marka kulli qof walba caradu heli kara ayuu isticmaali karaa aniga hadda waxaan isticmaalaa carada madow maxaan u doortay inay biyaha hayso biyahaynteeda waa muddo ay biyaha haynaysaa laakiin carooyinkan kale inay biyaha isla markii isticmaalaan ayaa suuragal ah marka aniga carada madow ayaan isticmaalaya waa tii caradaas madow waatan hadda geedkan oo kale ku abuuran geedkan aad u jeedaan cara madow ayaan isticmaalay hadda carada madow ayaan isticmaalay waa beer yar oon ku diyaarsaday guriga dhexdiisa oo aan geedaha ku tallaalo si beerihii aan ugu sii tallaalo ma aha geeda ganacsi aan u abuuray ma aha laakiin waxaan u abuuraa inaan beerihii iyo waxaas ku abuuro iyo qofkii u baahan oo kale geed qofkii u baahanna waan ku hadiyad ahaan oo u siiyaa marka anigana practical ku sameeyaa aye bacdi ayaan hadda carada ku shubaynaa waayahay waxaan soo diyaarsanay caradii waxaan rabnaa inaan ku shubno bacdi aan diyaarsanay aniga caradan isticmaalaya hadda waa saan hore soo sheegnay waa caradan madow caradii ayaan ku shubaynaa kulli waxaan isticmaalaynaa gacmaheena saad ku jeedaan bacdi ayaan buuxinaynaa caradii aan ku shubnay ilaa inta ay qaado ayaan ku shubaynaa haafa ka dhigan aadna ha u buuxinin hadda waxaan geynaynaa intan waxaan u geynay bacdan waxaa loogu talagalay hadhow inay biyaha u qaado intan waxaa loo reebay inay biyaha u kaydayso marka hadda mirihii ayaan halkan ku talaali doonaa mirihii hadday aan haysanay shawriga ayaan rabnaa inaan halkan ku talaalno bacdi ayaan diyaarsanay marka wakaa waayahay hadda waxaa noo diyaarsan mirihii oo halkan noogu jira iyo caradii oo noo diyaarsan biyihiina waan soo diyaarsanay wakaa marka keliya hadda waxaa noo dhiman inaan abuurno mirtii inaan caradii ku talaalno waxaad samayn kartaa marka inaad horta biyaha ku waraabiso intaadan miraha ku shubin bacda intaadan mirta ku ridin miraha ku ridin carada waxaa haboon inaad xoogaa waraabiso sababtoo ah mirahan waa miro aad u yar oo khafiif ah dabeeshana ay qaadi karto marka waxaa laga yaabaa markaad biyaha ku shubayso in caradii ay biyihii banaanka uga soo saarto mirtii ay banaanka biyaha dul seeraarto marka waxaan sameynaynaa marka hore bacdii carada ku jirtay ayaan biyaha ka dherjinaynaa biyo ayaan siinaynaa okay aan aragno biyo badan uma baahna qiyaas tartiib in loogu shubo waaye ilaa biyaha ay hoos ka gaaraan aynu aragno midii ugu horeysay aan biyaha ku shubnay hadda biyaheeda hoos ayay u degeen tii kalena biyaheeda way degi rabaan saad u jeeda way degeen tanna biyihii way liqday oo way degi rabtaa marka xoogaa baan u sugaynaa ilaa biyaha ay hoos uga degaano ilaa hoos ay ka gaaraan aynu aragno waayahay aan la soo baxna mirihii marka maadaama aan diyaarinay bacdii iyo mirihii waa kuwan saad u jeedaan marka mirtii inta ku jirtay dabeesha qaadaysa saad u jeedaan dabeeshii yareed ee timid hadda waxay dhaqdhaqaajinaysaa mirihii marka mirtan xabad inaan u soo qaadno ama laba aan u gelino ayaa noqonaysaa meesha waayahay 2 xabo ayaan soo qaaday hadda waxaan dhigayaa inta hoos ayaan ula geliyay marka hoos aan la geliyay caradii ayaan ku daboolay waad u jeedaan haddana waxaan soo qaadayaa gacanteeda ku soo dhigtay ilaa 3 xabo 4 xabo haday soo baxday xitaa caadi ma hadhow waa iska siibi kartaa haday bacda ku bataan waa iska siibi kartaa si aad hal xabo ugu reebato haddana waxaan soo qaaday ilaa 4 xabo inta 4 xabo hadda 4 mirood waaye iyadana waxaan geliyay halkan dhowr sentimitir inaad hoos u dhigto ayaa haboon waaye intaas markaan sameeyay wax yaro biyo ah inaan ku rusheeyo ayaa noqonaysaa wax yaro biyo ah
inaan ku rusheeyo waayahay waaye biyaha ayaan soo diyaarsaday biyaha markaan gacanta ayaan uga dhigayaa waayo inay miraha banaanka u soo baxaan ayaan diidayaa marka okay waaye daawadayaal hadda waxaan diyaarinay mirihii waana abuurnay marka maxaan sugaynaa mirahan inay ku soo baxaan waxaan sugaynaa 14 maalmood mirahan inta ay ku soo baxayaan waa muddo 14 maalmood ah shawriga mirihiisa saan aniga practical u arkay maadaama aan abuuray geedahan saad u jeedaan maadaama geedahan aan abuuray ilaa 14 maalmood ayay ku soo baxayaan waraabkoodana muxuu noqonayaa 3 maalmoodba hal mar in la siiyo biyihii hadaayo kale intii hadaay biyaha aan siinay markii hore aan ku shubnay ayaa 3 maalmood kadib la waraabinaya marka biyo badan oo caradan inay aad u jilicdo looma baahna waxaa loo baahan yahay carada inay adkaato laakiin qoyaan yar inay hesho marka geedka saas uu ku soo baxaya waayahay saaxiibayaal bil kadib saad aragtaan geedkii wuu soo baxay oo shawriga ahaa waa kana heerkan ayuu marayaa hadda waa hal geed mirtii yareed meesha ka soo baxday waa kana marka 3 xaba ayaa soo baxaysa saan ku abuurnay 3 geed ilaa 4 mirood ayaan ku ridnay meesha 4 mirood ilaa 3 mirood marka intii soo baxday qaarna inay soo bixin suuragal laakiin haday soo wada baxaan waxa wanaagsan inaad hal xaba ku reebto sababtoo ah halkan bacyar haday 4 geed ku kulmaan waxa dhacaysa inay nafaqadii carada meesha ku jirta isla qaybsadaan ama afartoodaba ay kuriimadooda dhinaato marka waxa wanaagsan in hal xaba lagu reebo si kuriimada bacdaas nafaqadii ku jirtay ama carada nafaqadii ku jirtay iyo biyihii kaligiisa uu lahaado oo aan la wadaagin marka waa sidaas shawriga sida loo abuuro waayahay haddana waa kan geedkii shawriga ahaa oo barbaarsan kii ma aha kii waa kuwa kale oo beerta aan ku diyaariyay waaye geedkan shawriga marka faa'iidadiisaan rabaa inaan ka hadlo faa'iidadu uu leeyahay waa maxay waa geed aad u qurux badan waxaana loo adeegsadaa qurxinta gurigaaga wuxuu qaadanayaa geedkan dhul yar oo meel gees ah darbiga geeskiisa isaga abuuranaysaa geedkaas markuu baxo wuxuu soo saarayaa bilicda gurigaaga wax kale ma aha marka waxaan maadaama geedkan uu yahay geed aan aad u jeclahay waxaan jeclaaday inaan asxaabta la wadaago laga yaabay dad badan inay daneynayaan geedkan helitaankiisa ama sida loo abuurto marka intii kharash badan uu kaaga bixi lahaa geedo badan oo kana inaad soo gado guriga ku qurxiso adigaba abuuro cilmigiisana waa inta ama qaabka loo abuurana waa intan yar aan hadda muuqaalka ka soo diyaariyay aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh